xilka qaadis u muuqatay qaab inqilaab ayaa xilkii ra'iisul wasaarenimo looga qaaday ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo xukuumaddiisa. Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in baarlamaanka uu maanta kalsoonidii kala noqday xukuumaddii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Gudoomiyaha Golaha Shacabka ayaa sheegay in cod loo qaaday kadib 170 xildhibaan ay kalsoonidii kala laabteen xukuumaddii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre halka ay diideen 8 xildhibaan. Mursal ayaa ugu baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub oo dalka u horseeda doorasho dadweyne. Xildhibaano ka tirsan golaha wasiirada oo joogay fadhiga baarlamaanka ayaa diiday dooda kalsooni kala noqoshada xukuumadda ayagoo ku tilmaamay go'aanka ridista xukuumadda mid ka timid guddoonka oo kaliya isla markaana aan sharci haysan. Wasiirka amniga dowladda federaalka Maxamed Abubakar oo ah xubin ka tirsan golaha shacabka oo maanta joogay ayaa sheegay in wixii baarlamaanka ka dhacay aysan sharci ahayn. Waxa uu intaa ku daray in warqadaha loo qaybiyay xubnaha baarlamaanka ay ku qornaayeen oo kaliya in doorashada laga doodi doono. Halkan waxa ku qoran ajandaha maanta ka doodista doorashooyinka ayaa ku qoran. Annaga xan ayaan helay in guddoonka baarlamaanka ay ku mashquulsan yihiin inay yiraahdaan xukuumaddii way dhacday. Ajandaha wuxuu soo qoray faalisa ayuu yiri Master Abubakar. Dhanka kale markii uu gudoomiyaha ku dhawaaqay in xukuumaddii xilka lagala noqday ayaa waxa la arkay qaar ka mid ah xildhibaanada oo u dabaaldegaya natiijada. Buuq iyo sawaxan dheer kadib waxa soo xirmay kalfadhigii baarlamaanka. Haddaba sidoo loo ridi karaa xukuumad aan mooshin laga keenin lagana doodin xilka qaadisteeda. ummadda Soomaaliyeed aan rabaa markii mustaqbalka la yiraahdo muxuu Xasan Khayre ku soo kordhiyay shaqada wadankan kaliya hal mid in la yiraahdo shacabka Soomaaliyeed ayuu soo hor istaagay runtuuna u sheegay hatta haddii ay kalifayso run sheegiddu inaan shaqadayda ku waayo diyaar baan u ahay. qof walba Soomaaliyeed oo maqlaysa iyo idinkaba waxaan idin sheegayaa haddii aad rabtaan dalkan in wax laga qabto kaligay kama qaban karo madaxweyne Farwaajina kama qaban karo. haddii aad rabtaan dalkan in wax laga qabto waxaan idinka codsanayaa inaad istaagtaan. kow inaad ka bilowdaan carruurta Soomaaliyeed inaad u dejisaan manhajkii lagu bari lahaa idinkoo Soomaali isku soo dhaweynayo. labo inaad kulligiin is abaabushaan oo istaagtaan oo la xisaabtantaan dawladda Soomaaliyeed. saddex inaad su'aalo isweydiisaan ma dad baan nahay lagu yaqaanay karti iyo sharaf oo magacooda la yiraahdo Soomaali oo taariikhda Afrika iyo dunida laga yaqaan